waxaan halkan runtii ugu sheegaya warbaahinta in aan go'aansaday inaan la shaqeeyo barasaabka iyo maayarka hawshii deegaanka isku hayana waxaan runtii leeyahay xildhibaanadu oo golihii dib isugu soo noqdeen caqliga hala maclo ha lagu soo dabaalo heshiis iyo wada hadal danta degmadana dhan looga soo wadajeesto waxaana runtii aniga hadda iga go'an inaan la shaqeeyo maayarka aniga oo ah Cabdikariim Maxamed Ilaahay kana tirsan golaha deegaanka arrinkii guriyihii booliiska la isku hayay xildhibaanada kamid ahay waxaana arrintaa nooga mas'uul ah oo hadda gacanta ku haya barasaabka waana kula shaqeynaa iyo barasaabka oo ah xukuumaddii wixii danahay degmadu leedahayna aanu dhan uga soo wada jeesano oo wixii talo ku soo ururtay in wixii la isku hayay oo ahaa mooshii loo dhisay degmada oo hadda uu gacanta ku hayo barasaabka in wixii dan ah dhan looga soo wada jeesto laguna shaqeeyo barasaabka iyo maayarka iyo xukuumaddaba degmadu waa degmadeennii golahu waa golaheennii wixii dan ah ee degmadu leedahay dhan looga soo jeesto dhammaantiin xildhibaanadii nahay arrintaa waxaan iska mid baan nahay barasaabkana wixii saaran waana kula shaqeynaa